عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بداو ضيال كسو دوادا برنامج كان عدك الصوماليات برنامج كان وانا لبوغا هذا النو dhibaatada ay kala kulmaan ummadda Soomaaliyeed qurbaha barnaamij kan waxaan kaga soo hadalnay arrimo badan oo ay ka mid yihiin qaadka waxbarashada iyo dhibaatooyin kale oo aad u fara badan kuwaas oo xal u raadinay barnaamijkan waxaa had iyo goorba igala qayb qaata dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoon-yahaniin ah oo ku sugan waddanka Ingiriiska kuwaas oo had iyo goorba inuu yimaado studio-ga telefishinka Universal ee magaalada London si ay ummadda Soomaaliyeed u wacyigeliyaan ama uga caawiyaan dhibaatada ay la kulmaan haddaba barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa vote-ka waxa loo yaqaano ama codeynta ama doorashadaba sidaad la socotaan waxaa jirta ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamadan gaalada ah ama wadamadan westernka ama Europeanka ama America meesha noqotaba in ay arinta codeynta aysan si aad ah u xiiseynin arintan oo maanta kaga hadli doono barnaamijka codka Soomaaliyeed ayaan waxaan su'aasheeda ugu horeyso weydiinayaa dhamaan aqoon-yahaniintan dhalinyarada Soomaaliyeed sida ay u arkaan ummadda Soomaaliyeed iyo sababaha keentay inaysan aad u xiiseynin markii loo eego dadka kale ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska Hindida ama Pakistaanta ama Bangladeshka dadkan Asia ka yimaaday badankood waxaad aragtaa inay ka muuqdaan baarlamanka ama baarlamankan waddanka Ingiriiska maxaa keenay in aysan Soomaalida uga muuqanin markii loo eego dadkaasi su'aasheeda ugu horeyso waxaan weydiinayaa Ibrahim bismillahir rahmanir rahim waxa runtii muhiima bulsho kasta oo dunida ku nool in ay wax doorato lana doorto dalkan aynu joogno Ingiriiska waxaa ka jira system doorasho democratic waxa ay yiraahdaan ama afka qalaad loogu yaqaano ka dhisan waxa haddaba ay dhibaatada koobaad tahay ee bulshadeena haysata in aynaan ka faa'iideysan codadka aynu leenahay inaynaan ka faa'iideysan tirada aynu leenahay iyo inaynaan ka faa'iideysan quwadda aynu leenahay dalkan aynu joogno gaar ahaan Ingiriiska waxaa jira saddex xisbi oo ugu caansan dalkan oo sida Labour-ka, Conservative-ka iyo Liberal-ka qofku cidu doonaha u codeeyo laakiin muhiimaddu waxa ay tahay inuu qofka uu codeeyo uu codkiisa dhiibto markay golaha deegaanka tahay markay golaha baarlamaanka tahay markay ra'iisul wasaaraha tahay boqorada oo quruma loo codeyn laakiin inta kale oo dhan codkeeda waad ka qayb qaadan kartaa dadkuna waan ogahay reasonada aynaan haddaba u codeynin waxa ay tahay sidii nabiga weydiiyay waxa weeye inagii oo aan fahamsanayn codeynta qiimaha ay leedahay inaga oo aan ahayn ummad ku soo dhaqantay inaynu codeyno ama aynu codkeena dhiibano because waxa jirtay inaynu Africa kala simanahay dictatorialka gaar ahaan ay Soomaaliyana ku jirtay muddo badan oo aan cod baad sheegtay aan la isweydiin kuma tahay marka haddaba tii waynu ka duwanahay dalkan aynu joogno gaar ahaan inaynu codkeena dhiibanaa muhiim weeye codkaaga oo aad dhiibato baad ku noqon kartaa qof karaamo leh codkaaga oo aad dhiibatay ubadkaaga ku badbaadayaan codkaaga oo aad dhiibataad shaqo ku helaysaa codkaaga oo aad dhiibataad guri wanaagsan ku helaysaa codkaaga oo aad dhiibato ay ku koraysaa aqoontaada iyo aqoonta ubadkaaga labaduba su'aasheedan kale waxaan weydiinayaa Maxamed Aadan wax yar ma inooga sheegi kartaa xisbiyadan ka jira waddankan Ingiriiska iyo waxay u kala taagan yihiin sida la socotiin waxaa ka jira saddex xisbiyood oo waaweyn oo ah Labour-ka iyo Conservative iyo Liberal Democratic oo la yiraahdo markaas maxay u taagan yihiin haddii aad wax yar uga sheegto ummadda Soomaaliyeed ama daawadayaasha telefishinka Universal marka aynu ka hadlayno xisbiyada Ingiriiska ka jira waana UK ma oranayna waxaan oranaynaa Ingiriiska ama Britain waxaan u naqaano waxa ka jira aduu 25 urur oo siyaasadeed ayaa ka jira inta badankii inagu aynu naqaanaana waa saddexda waaweyn waxaan u maleynayaa waxaynu si aynu barada tusaale fiican aanu idinka siino saddexdaas aan ku soo yara koobi doonaa waxa jira wax la yiraahdo manifesto saddexdii nabiil taabtay weeyaan waa Labour-ka oo iminka hoggaanka u haya waddankan Ingiriiska Conservatives-ka iyo Lib Dems-ka kuwa la yiraahdo marka aynu leenahay maxay ku kala duwan yihiin had iyo jeer waxay soo saaraan wax la yiraahdo manifestadaasi marka waxa ay tusaysaa mowqifka ay taagan yihiin iyo hadafyada ay doonayaan inay ay qaadaan iyo area ama meelaha ay doonayaan inay xoog saaraan ay wax ka qabtaan
marka arrinkii ay doorashooyinka ku galayeen weeyaan haddii markaa bal hadda aynu doorashadii ugu dambeysay ama doorashadii 2001 haddaynu dib ugu noqono oonu bal hadda manifestooyinka aynu bal hadda wax yar ka taabano Labour Party-go kale wuxuu lahaa waxay manifestadoodu waxay isugu soo ururiyeen ambition for Britain marka aynu eegno Conservatives-ka oo kale waxay iyagu ay manifestadooda ka dhigteen time for common sense sida kale haddii aynu Lib Demska aynu eegno waxa ay iyagu laftirkooda ay iibinayeen waxa la yiraahdo freedom, justice iyo honesty marka arriba inta yar aan idin taabtay laftirkeedu waa waxay leaflets iyo brochures bay sameeyaan oo waxa ay marka ay ku sii kala guraan yani hadafyada iyo sidii aan idinku sheegay iyo meelaha ay doonayaan inay wax ka qabtaan oo marka ku salaysan arrimaha aan idinka taabtay manifestooyinkooda ku salaysan insha Allah haddii marka aan arrinkii su'aashii Nabil haddaan dib ugu yara noqday ahayd sababta ay dadkeenu ay uga qayb qaadan la yihiin doorashooyinka maxaa keenay waa su'aal aad u muhiim ah su'aal taabanaysan weeyaan sababtan aan maanta uga hadlayno arrinkan marka haddii aynu haddaan arrinkaa wax yar ka taabto waxaa jira urur la yidhaahdo audit for political engagement oo magaciisana waxaa la yidhahdaa Hased Society haddaa Google garaysaan waa ka helaysaan waxa marka ay promote gareeyaan waxa la yidhaahdo democracy-ga marka ururkaasi waxa uu baaritaan ku sameeyay muddo dheer sababta ay dadku ay u codeeyaan iyo waxa ku kalifa iyo had iyo jeer codeynta laftirkeedu way isbedeshaa waayo the interest-kii ama dantii dadka ayaa isbedelaysa marka waxay ku soo koobeen wax la yiraahdo 6 core indicators ama 6 wax oo muhiim ah oo marka lagu saleeyo ka qayb qaadashada siyaasadda ta ugu horeysa waa aqoonta uu qofku u leeyahay siyaasadda taasoo ay yiraahdeen waa knowledge talabaad waxa weeyaan danaynta ama interest-ka uu qofku u hayo ka qayb qaadashada siyaasadda ta saddexaad waxa weeyaan ka qaybgalka siyaasadda oo waa participationkii ta afraado qiimeynta laftirkeedu waa muhiim qofku haddii aanu qiimeynayn ka qaybgalkii laftirkeedu ma danaynayo marka ka qayb qaadashadii siyaasadda ama codeyntii ta labaad ama ta ugu dambaysa lixaadna waxa weeyaan satisfaction waxa la yiraahdo ama kalsooni inuu qofku ku qabo systemkii hore u soo jiray siyaasadeed marka adu lixdaasana marka arrinkan la qiimeynayo ama la doonayo bal hadda in la eego dadku waxa ay u codeeyaan ama aanay u codeynba inta lagu saleeyaa marka waa inta annagoo weli ku guda jirnaa barnaamijkan codka Soomaaliyeed bal su'aasha kale aan u soo jeesto Abuukar waxaad ka mid tahay dadka doonayo inay ka mid noqdaan xildhibaanada waddankan Ingiriiska adoo kana maaragtay raba inaad ku biirto xisbigan Conservative marka sidaad rabtaa maaragtay inay ummadii ku doortaan ummadii Soomaaliyeed haddii aysanba doorashadii aysan ka qayb galin Abuukar waddankan Ingiriiska waxaana loo bixiyay magac yar oo runtii aan jeclayn oo la yiraahdo Hartridge Groups baan la yiraahdaa Hartridge haddii aad u sii fiirsatid waa dad badan oo aan meel loogu soo hagaaga lahayn arrintaa runtii ma aanu jeclaysan raallina kama nihin taa awgeed waxyaalaha igu kalifay oo aan ku fakeray inaan dhahno dadkani waa meel loogu soo hagaaga way leeyihiin dadkani haddii dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo ujeedadooda iyo baahidooda haddii la address gareeyo oo laga hadlo way garab taagnaanayaan wayna soo baxayaan waxaan ku rajaynaynaa insha Allah aan jecelahay inaan u istaago sanadka soo socda xisbiga Conservative-ka consular inaan u istaago waxyaalaha igu abaabulay oo igu dhiirigeliyay waxa kamid ah London Somali Youth Forum oo igu encourage gareysay inaynu yeelano member hadda ka horna sameeyay attempt gareeyay insha Allah aniga kaligay ma aan niman badan baa jira ee waxa la igu yiraahdaa indhaadaga bal sheekada qarxi insha Allah waana istaageynaa waxaana believe gareysanahay haddii aan istaago oo aan Somali community dhaho xisbigan u food gareeya anaa inoo jooga wixii aan ku qaban karnaa waan ku qaban karnaa waana ku hanweynahay inay Soomaalidu igu support gareyn doonto